munaasabada xuska 18 May oo ku beegan markii Somaliland dibadda loo taagay ayaa lagu qabtay fagaaraha garoonka Daalo Stadium ee magaalada Ceergaabo waxaana fagaarahaasi isugu soo baxay shacabka magaalada Ceergaabo ardayda iskuulada magaalada Ceergaabo wasaaradaha kala duwan ee ka howlgala gobolka Sanaag ururada bulshada laamaha kala duwan ee shaqaalaha dawladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Sanaag oo si weyn isugu soo abaabulay xuska maalintan qaran ee 18 May iyagoona ku labisnaa calanka muuqa dheer ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo boorar ka turjumaya weynaynta munaasabada qaran ee 18 May waxaana munaasabadaasi bulshada magaalada Ceergaabo kala soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland iyo wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland iyo maareeyaha madbacadda qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo sidoo kale maamulka heer gobol iyo heer degmo waxaana intaasi kadib halkaasi dowladda ku soo maray ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee ku sugan gobolka Sanaag iyagoona salaan sharaf halkaasi ku siiyay wafdigii uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland waxa ugu horeynba fagaarahaasi bulshada gobolka Sanaag kala hadlay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro iyagoona uga mahadnaqay bulshada gobolka Sanaag isoo baxani ballaaran ay ku weyneynayaan maalinta qaran ee 18 May Jamhuuriyadda Somaliland 18 guuleedii 18 May marka ugu horeeya 18 May waxa uu baxay naf badan rag badan baa akhira jira ummad badan baa dhimatay goobtan aynu taaganahay inagoo dabaaldegayna qarannimadeena Jamhuuriyadda Somaliland 18 guuleedii وسعادة الوزراء إذا رمضان تاي ما أنت ويكون بيجنتي دبلدكو وهنا رغم هذا غيا ومدة ريال عرقاوة تدور ديار فاي دبلدكا قرن مدينة. وعمر دورها مرينا زمان سعد وينها degmada Ceergaabo iyo gobolka Sanaag aniga ku hadlay waxa jirta canaasir yar oo badan oo wax ka sheegtay 18 May waxaanu leenahay 18 May in iyo cawri balaaw isa xaasidku waxba kuma yeesho carabka xaasidku kuma karo insha Allah waxaanu rajaynaynaa sanadka dambe haddii la ilaa in maalinteeda horumarka aynu gaarnay ka ballaaran inaynu ku gaarno insha Allah aad baan idin hambalyeynaya waxa iyaguna halkaasi ka hadlay maareeyaha madbacadda qaranka Somaliland Maxamuud Raage Ibrahim iyo wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland iyo wasiirka wasaaradda cadaaladda Somaliland iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland Maxamed Muuse Diiriye iyagoo maalintii shalay magaalada Ceergaabo u yimid sida uga qayb galaan xuska maalinta qaran ee 18 May inoo suurta geliyay inaynu si sharaf iyo qiimo badan iyo nabadgelyo ugu ciidno sanad guuradii 18aad ee qaranka Somaliland waa ilaahay mahadi weeyaan 18 May waxa weeye waa maalin taariikh la weeye maalin qof iyo labo iyo saddex iyo group ay dibindaabiyeen karaan maaha ummadan waxay u taagan tahay inay maanta waxaan xusaynaa 18 guuradii ka soo wareegtay maalintii aan dib loo soo noqonnay calankeena oo muddo badan inaga maqnaa sanad guuradii 18aad ee u weyneeyeen maalinta 18 May oo uga soo qayb galeen arrintaas way farxad gelisay ardayda ayay gelisay aad iyo aad ayaan ugu mahadinayaa dadka reer Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo sida qiimaha iyo sharafta iyo karaamada leh ay u weyneeyeen maalinta 18 May ay ugu helayeen looga soo qayb galeen taa marka laga gudbo gobolka Sanaag waa gobol aad u weyn waa gobol taariikh weyn waa gobol wax soo saarkiisa iyo dhaqaalihiisu aad u sarreeyo marka laga eego
sida ay ugu badan yihiin xabkaha sida ugu fiican yahay beerashada sida ugu fiican yahay xoolo dhaqashada sida uu leeyahay 18 May oo 28 jirsatay ka qayb galo oo aan kala qayb qaato farxadda dabaaldega iyo dhoolatuska aan kaga qayb qaato halkan ay ku sameeyeen reer Ceergaabo ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii sanaag marka aynu leenahay waxaan u malaynayaa qaranka Soomaaliland dhulka marka la qaybiyo saddex loo qaybiyo inay hal meel tahay على تلفزيون كعالمي هوريال 24 TV عريقة